guddiga tusaale ahaan madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suudimaha marka la sameynayay Soomaalidu waa taqaanaan oo waxay dhinac 4.5 na way ku jirtaa way ku yimaadaan aniga xaafadda laygu tiriyo kuwa ka yimi wadada qoyahana laakiin waxaan idin cadeynayaa waaba laga yaabaa inay joogaan qaarkoodna weligay xataa lama kulmin weligay lamaan kulmin ayagoo isla joogana lama kulmin ayagoo gaargaarana ma arag gudoomiyaha guddiga doorashada uu joogaa weligay hal maalin oo meeshooda tagay iyagoo de tiimkii dhannaa iyo anigoo tiim la socda ayaan u maraynayaa inaan wada fadhiisan weligay si gaaran uma arag waxa la waxaan isku ognahay ma jiraan marka de danta gaarka ee ugu jirta Cabdikaafi oo aad durtay hadday kuwa jiri jireen aniga waxba iguma jiraan taa waa mid dastuurka loo kaadiyo waxaa la sheegay dhowr iyo 10 sano inuu marayo su'aashu waxay tahay loo kaadiyay adiga aan ku dhiibnay goormaan dhamaynaa oo dadka diidani ay diyaar u noqonayaan inta soo fadhiistaan in laga wada hadlo mise malaa'ig baynu sugaynaa soo degta oo dastuurka noo dhamaystiraysa soo innaga oo kale un maaha dadka laga sugayay inay dastuurka maxaan dadka Soomaaliyeed waqtiga uga dhuminaynaa away dhaartii la dhaartay iyo wixii naloo diray away programyadii soo in la xisaabtamo maaha accountability soo maaha ileen baarlamaan baa nagu asxiyay aniga xukuumadayda baarlamaan baa asxiyay waxaana sheegay inaan dastuurka la dhamaynayo madaxweynaha programkiisii la ii diray inaan ka shaqeeyay haddii marka away ballantii iyo ahdigii iyo wixii la kala galay away xagee ka dhaceen yaasa mas'uulka ah haddii la yiraahdo lama dhamaynayo waa la taagnaanaya maxaa loo yaasa la sugayaa haddii inta la ii sheegi lahaa dadka la sugayo ama xilligaas ay imaanayaan ama soo dhalan doonaan ama waxba maqan ama marka baad la soo saaran yihiin ama diyaarad waa iska sugi lahayd laakiin meesha hal la fadhiyo dadka qaranka Soomaaliyeed ha fadhiyo way macnaha saasaan anigu u qaadanaya shacabka Puntland waa la ciqaabay waa soo waa runtii waa aragti meesha ku jirta waan aaminsanahay aniga inay ciqaab ku jiraan laakiin yaa ciqaabay waa arrin u baahan aan rajaynayo inay way joogaan wasiiradii reer Puntland xildhibaanadii reer Puntland xog ogaalka kuwii ahaa kulli oo dhan way joogaan waxaan filayaa meesha shacabkeena sharafta leh ee Cabdikaafi matalayo iyo haddii Cabdikaafi uu la qababa consensus inta qaba xog badan baa ka maqan waxay u baahan yihiin horta xog helaan waxaan rajaynayaa ilaa berri insha Allah in wasaaradda maaliyadda ay imaan doonto waxaan jeclahay inaad bit by bit u weydiisaan ayaguna way idinka warrami doonaan haddii annagu aan wax ciqaabno iyo haddii annagana lagu ciqaabo oon annaga iyo shacabku isku ciqaabano taasna waa wax meesha ku jira waaye waa tan sheegay mas'uuliyadaasi waa inay cid fushaa waa inay cidi accountable u noqoto annagu accountable waxaan u nahay baarlamaanka waxaan accountable nahay international community-ga waxaan accountable u nahay oo hor fadhiisanay oo la xisaabtamo idinka laakiin dhinaca kale yay accountable yihiin taasna waxaan rabaa inaan inta yiraahdo waxaan 100% ku waafaqsanahay in saad sheegtay ugu dambeysay in cidda maqan ay timaado concerns ka qabtaan ama bulshadu qabto ama xukuumadda Puntland ay qabto oo dhan in miiska la keeno la soo dhigo waxaan diyaar u nahay wax alla wixii la gaaray iyo wixii go'aan ahaa oo dhan kulligood aayado quraan ma hayn waxaan diyaar u nahay inta la fariisto in hadduu qofku sheego wax dan u ah shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan tanaasulo
taas intaasaan ka dhihi lahaa waadna mahadsan tahay. gudoomiye Jilani aad buu mahadsan yahay. waa oday weyn runtii Soomaaliyeed mas'uul ah uu ka hadlay midnimada marka waxyaabo runtii dee wuxuu taabtay aan biyo kama dhibcaana oo kulligeen aynu isku wada faaqsanahay ku waafaqsanahay dhammaantood hal isu tanaasula ayuu yidhi annagu inaan danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed u tanaasulo diyaarana. taasna waxaan rabaa inaan ku caddeeyo Sheekh Cali de waxaan uu sheegay qodobo aad u wanaagsan buu sheegay oo ay soo diyaariyeen culimada Soomaaliyeed marka annaga culimada Soomaaliyeed madaxay noo saaran yihiin waxa la waxay noo keenaan diyaar baan u nahay waxaan aaminsanahay inay xambaarsan yihiin wartatu anbiyaa yihiin waxaan aaminsanahay inay dana gaar lahayn waxaan aaminsanahay inay maslaxada ummadda Soomaaliyeed mar walba ay hagayaan marka ay hagayso marka diyaar baan u nahay inaan aan qaadano runtii waan soo dhaweynayaa. Professor Talha runtii waa nin ku takhasusay culumta bulshada aqoon-yahana marka wuxuu abaaray asagu inay caqligii iyo akhlaaqdii bulshadu duntay oo ay laga maarmaan tahay in la soo dhiso. waxaan ku waafaqsanahay bulshadeena dhibaato badan baa soo gaartay xanuunay qabaan de markaad fiiriso sida aynu ula falgalayno waxyaabo badan oo hadda meesha laga hadlay oo ay ka mid tahay dawlad dhiska oo ay ka mid tahay in iswaafaqo iyo midnimada iyo wada jirka iyo is-ogolaanshaha kulligood markaad fiiriso iyo innaga sidaynu fawdada ina haysata markaad fiiriso waxaa kuu soo baxaysa in ay tahay irhaasaad ka soo baxaya wixii ina gaadhay iyo xanuun aan dareemayno oo u baahan inaan iska traumooyin marka qaarkood healing u baahan iyo in dadka ay maskaxda ay ka dawoobaan ayaa runtii marka wax badan ma dhihi karo laakiin waan kaftami lahaa laakiin waali badani way jirtaa. waxaan u baahannahay marka inaan dadkeenna aan tircinno oon tartiib u wadno oon u dulqaadanno oo aan ogaano in xanuun badan jiro marka xanuunkaasi ma hayo oo keliya ilmaha malnutrition ku dhacay sida dhibka badan ku koray ma hayo uun dadkii guryahooda la dumiyey kuwii xoolahooda la dhacay kuwii hortooda qofka lagu dilay kuwii shabaab qarxiyeen kuwii dhibaatada kuwa kaliya ma haya kuwaas waxaa la mid oo bulshada ka mid ah siyaasiga marka siyaasigu nafsu isku mid baan nahay bulshadu waa isku wada mid marka waxay u baahan tahay inaan fahamsanahay inaynu aan la tacaamulayno bio waxaas ka soo baxday ama ku dhex jirta oo xanuun badan uu ka jiro marka beeraleyduna ha dul qaataan maxaan ku dhahaa dawladduna ha dul qaadato markaad fiiriso dadkeenna social media ha fiiriya si loola falgalayo dadkeenu nooca ay u noqdeen fiiriya nooca la isu criticize gareeyo fiiriya nooca la isu caayo fiiriya qaabka loo dhaqmo eega waxay ku tusinaysaa waxaasoo dhani in bulsho ahaan burbur uu jiro oo aynu u baahannahay inaan ka soo kabanno dhibaato xanuun badan ina jiro marka waan kugu waafaqsanahay Professor Talha hawshaas waa hawl jirta dee in la daweeyay u baahan tahay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin Professor geedii waxaa waaye asaga hawshiisa difaacday dabcan waxaan aaminsanahay inuu xilli adag ku soo aaday markii uu ra'iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inuu sacrifice gareeyay naftiisa oo xataa in badan la weeraray waxaan aaminsanahay in uu buddhiga u ahayd dawladnimada Soomaaliya maanta dawladiisii asagoo xukuumadii uu asagoo hogaaminayay marka uu ku mahadsan yahay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay mar walba in uu dawladnimada uu lex jecel weyn u qabo
marka waad ku mahadsantihiin dhammaantiin